daraawishta maamulka Puntland weeye waa howlgalladii ugu dambeeyay ee ay sameeyeen ciidamadu waxay gacanta ku soo dhigeen agabkaasi aad aragtaan waa gawaari waa laba saarufa gawaarida qaaliga ka mid ah Soomaaliya laba saarufa oo intii la kala furfuray godka la geliyay iyo laba waxa weeye gawaarida iska rogayaasha waliba laba candha oo isagana intii la furfuray birbir loo furay meesha la geliyay iyo mootooyin spare parts fara badan waxa saad aragtaan hantiya ayay kooxda argagixisada Daesh intay god weyn qoday teendooyin ay u galiyeen bay galiyeen kaga carareen ciidanku waa soo saareen inta laakiin ma aha halista qoraalka ku qoran ee aragtay intaasi ma aha inta waa hanti laakiin waxa jirta arrin kale oo halis badan oo laga yaabo bulshadu inaysan ku baraarugsanayn oo maxaa kamid ah labadii nin ee la dilay ee ajaanibta ahayd ciidanku waxay soo bandhigeen bahal yar oo laabta u saarnaa inaad arkayseen waramahayo laba bahal baa mid walba laabta loo saaray oo nimankaasi ay wateen labadaasi bahal bulshadu in badan oo kamid ah kama sheekaynayso warbaahinta xataa Soomaalida ee dagaalkaasi tabinaysay kama aysan waramin labada bahal halka loo saaray maxay waa laba bahal oo aad u khatar badan weeye oo aad u halaagsan haddaan laga feejignaanin khatar badan bay keenayaan in laga feejignaado lala socdo dhaqaaqooda muhiima iyadana waa ka dabageynaya waxa guud ahaan muuqaalka ku dul istaagi doonaa howlgalladii ka socday buraha Calmiskaad ee gobolka Bari iyo kooxdii argagixisada ay halka ay ku dambeysay iyo meesha la kala marayo ayaa muuqaalkan ku soo qaadan doona halgankan gabagabada taagan shacabka doorka ay ka qaateen iyadana waa bogaadinaynaa waa taabanayna muuqaalka la saara fogeeya meel dheer ka tuura aynu ku bilownay ciidamada daraawishta maamulka Puntland howlgal ay sameeyeen ayay ku soo qabteen oo gacanta ku soo dhigeen godod waaweyn oo kooxdu ay gelisay ku aastay gawaari intay furfureen iyo sidoo kale agabyo kale oo u badan spare parts horey waxaan ogsoonay inaan inta badan gawaarida kooxdaasi ay wateen la gubi jiray oo kooxdu intay gubto dab qabatiiso ay ka sii dhaqaaqayeen waxa kale oo ogsoonay in godad badan oo hub ah iyadana la helay hadda waxay ciidanku soo bandhigeen god aad u weyn oo la geliyay laba gaari oo saarufa iyo laba gaari oo iska rogayaal ah mootooyin fara badan iyo taageero matooro kuwa biyaha iyo kuwa kale ee leerka loo isticmaalo ah iyo agabyo kale oo aad u fara badan kooxdu markaa waxay ka dhigaantaa way jabtay mar hadday jabtay markaa kuwa quudaraynaya hadhowto armaad gaarigan la soo baxdaan armaad waxa weeye biraan hadhow soo qaadataan ayaa alaabta meesha geliya dabcan waa kuwa Soomaalida markaa doonaya markay baashu kala degto oo hadhowto xaalku uu kala dago armaad la soo baxdaan laakiin niman fiiran dheer oo god ka gabanaynin oo wax walba waxa weeye ka warhaya ayaa Ilaahay baa u fudeydiyay baa gacanta ku soo dhigay hanti badan way hantida maanta waxa way ciidamada ay soo bandhigeen shalay hanti aad u badan way hanti yar ma laba gaari oo iska rogayaal oo waliba laba gawaarida labada candha iyo laba gaari oo saarufa afartaas baa horta ciyaarahayba ciidamada soo bandhigo gacanta ku soo dhigay howlgalladu si habsami leh ayay u socdaan hadda wixii laga sheekeeyaaba waa mid god ka soo baxay oo isagoo intuu joogi waayay cararaya madaxa la jabiyo iyo mid alaabu meel ay geliyeen intaa bay hadda howlgalku isku soo ururay kooxdii waa argagixisa caalamiga lahaa meel ay ka dhaceen iyo jaan cirib meel ay dhigeen lama hayo jabkaas horta kooxdii ku dhacay inay kabahooda aasaan gawaaridooda aasaan birahooda aasaan qaarna ay gubaan qorigii ay wax iskaga celinayeen meel ku aasaan oo iskaga cararaan halkaas bay horta tabartoodii noqotay ilaahay baa garabkooda waxa weeye mid ka baxay arba waxa weeye ay noqdeen carab ciidankiina waa ku daba jiraan kaaga darane ragga bursanaya gaari xataa ma wataan hadda sababtoo dhulkan lagu bursanayo lagu cayrsanayo waa buuraley gaari ma geli karaa iyagiina waxa weeye meeshii waa u ahaan weyday
وهو وده وقال هذا شريته لبني وان مشغولين لبني أجانب اللي قلت لي لبني أجانب وإذا مضوا يكسوا كوين من استيال يكسوا كوين أيال الدلي لكن ما كان وحال لقاه لأي قلب وضركتين ميدتكو ذبرها بالشدة أي آدو هيست أنت نبض وضركتين لما وقال شروطه فيسبوك يوتيوب كي لما وقال ميد لما صدقان كرو إن هذا مركا وان تايم يوز أتكربتو أنت مركا ودكتو مركا ولا قالوا قرين يود هذا دان كلا مويين لما وقال لما نيني مركا شري لدلي وحضرتين إن قلب يرقع قلب كان سفي عنوك قلب كاس إن لا تلو صاري بضركتين وقال كقيت تورنا وانصوري قلب كايساقا وريموت كنترول ريموت كنترول كاس ريموديو دي اللي يقاني معها وريموديو شركة هورتا waxaa samaysay Chinese samaysay oo waxa weeye adduunka laga yaqaan samaysay remote kaas iyagu shirkadu waxay leeyihiin waxa loo isticmaalaa kicinta matoorada leerarka waxa weeye la isticmaalaa waxa loo isticmaalaa leerarka kale ee goobaha la isku imaado iyo waxyaabo la mid ah loo isticmaalaa bay shirkadu ayadu soo qoraysaa laakiin nimankan waxay u isticmaalayeen oo baaritaan kale to ayadana ku jira in bahalada iyaga hatta 3 kilomitir ka badan waxa weeye meena laga kicin karo oo wax lagu qarxin karo 3 kilomitir ka badan hada waa 3 kilomitir intee jira 3 kilomitir qofka jooga ma arki kartaa ما أركي كرتي قف 3 كيلومتر كوجرة ما أركي كرتا ما أركي كرتي لكن اليوم بركي يحط هران قرحينا ماشي هيكون بصدان 3 كيلومتر بيكا قرحينا يا وبالك أود أولي وي كوحدو بركا وحي استعماليين بهك أود عليه طبعا دي وحي أقول لك إن يكون كومك تقريان إذا 3 كيلومتر قف كوجرة قرحها يساقا إنه أنا معطيين كلمه وقان كريه لكن وحارم لك ترون نظر ayay ku connect gareynayeen sababtoo droonta waxa la socon macluumaadkeedana waa la socon baalka ku qarxisan lahayd remote-keedu waa wada soo marka dabcan droonadaas bay ku connect gareynayeen ama ay ku xidhayeen oo markaas ay ku qarxinayeen waa droonadii iyo qarxiyada dadka ku dhibaateynayeen ama gawaarida intay waxyaabaha qarxa ka buuxiyaan orda ay dhahaan طبعا markay khadka sida la socon markuu meeshii gaaro intuu ninkan u baxsan lahaa bay qarxinayeen marmaray si kastaba laakiin baalka remote-ka waa bahal halis badan weeye waxa laga yaabaa dadka baadiyaha intay helaan inay iska taabtaan batanka oo qarax meel yaalay oo ku connect garaysnaa uu qarxo dad u dhibaateeyo sida awgeed shacabku waa inay ka feejignaadaan baalka waa bahal halis badan remote-kaas yari cad ee arkayseen وابهل أب وهل إسبان وي 3 كيلومتر 3 كيلومتر بوحكة قرحنيا وحكى له وحكة قرحنيا دربية أطلق أفر دربي شن دربي أما شن جوري أو دمغيا جراش أو إنتاج استاج أي جراش الضبط هل كاس بوحكة تابانيا معلنيا دربية أنت عليه يجوريها أنت عليه وها أنت سيدنا سيدر oo dabcan de loo barbar dhigi karaa in qofka buurta jooga buurta kale dhabarkeeda qaraxa ku jira uu qarxin karo oo halka uu ka qarxin karo ama buurta shisheeytu ku fuulo buurta kale adiga jooga oo halka qaraxa kugu ogaa uu ka qarxin karo waana mid sababi karta saraakiishi badnayd ee la qarxiyay ciidanka Puntland inay sidaa ay u adeegsadeen oo qaraxyo meel ku xidhnaa ay la beegsadeen si kastaba laakiin waa bahal halis badan weeye agabyada la helay ka mid tahay saraakiishu Puntland de dabcan waa dad khibrad badan way yaqaan waxan laakiin waxa laga yaabaa inaysan bulshada la wadaagin waxan wuxuu ahaa ministerial bay hadda shalay ku soo koobeen ciidanku way yaqaan waxan inuu remote yahay in qaraxyada lagu qarxiyo waxaasoo cilmiga waa soo qaateen way yaqaanaan iyaga nooga si aqoon badan laakiin ta waayagu waa ciidanoo ma soo bandhigayaan oo dhimayaan warbahalkan halistaa u leeyahay ma dhahayaan annaga la rabaa marka inaan dhahno warbahalka halistaas u leeyahay marka shacabku ha feejignaadaan
halisa badan baa meesha loogu tegi doonaa hadda dadkii ka barakacay dhulka laga kiciyay kooxda argagixisada deegaanada dib bay ugu laabteen ilaa dhowr boqol oo qoys baa ku laabatay oo ilaa togan jacayl iyo dhulkan hadda dhazaan iyo dhadaar iyo dhulkii hadda kooxdan laga kaxeeyey iyo magaalooyinkiiba ku laabato deegaanadoodii iyo guryahoodii ku laabatay dee dadku qofna meeluusan degi jirin ma joogi karayo qof walba gurigiisa iyo deegaankiisa ayaa hoy iyo waxa weeye harba u ah marka halkaa inuu ku laabto ku qasbaya deegaanada marka kooxda laga kiciyey halis badan baa laga yaabaa inay walow ciidanku ay dadaaleen oo ay ka saareen qodxihii iyo qarxiyadii iyo balaadii ay kooxdan waxa weeye argagixisada ay daadisay haddana qaybo badan baa laga yaabaa inaan la daadin waxaa laga yaabaa meel xamusha ama meel xus ah inay bamba ku tuuraan abambaano ku tuuraan qori ku tuuraan waxa weeye bustoolad ku tuuraan balaayo wax qarxinaysa ku tuuraan baa laga yaabaa sun ay ku tuuraan waxaasoo dhan marka waa halis kale oo la rabo inay shacabku ay feejignaadaan shacabku markay wax arkaan aysan dheeman iyo dahab u maraynin kooxda ay ka carartay laamaha amniga ha la soo wadaagaan hadhaan waxaabaan aragnay kaala nala fiiriya ha laga fiiriyo wixii manafacaad u leh ciidanku ayagaaba dadkooda iyo ehelkooda aan waxa weeye ka qaadanayn wixii aan manafacaad lahayna dee waa laynaga qaadan oo halistiisa laynaga badbaadinay marka taana shacabku ha ku dadaalaan insha allahu tacaala wixii ka soo kordho muuqaaladina dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa